madaxweyne ka xeel ra'iisul badan ninkan lama arkin maalmahan xasan sheekh maxamuud culayska siyaasiyiinta uga soo wajahan si gaar ah saddex madaxweyne oo shirtay uu si dhiraandhiriyey waa sii hayay xogta waaba gooyaba dhul samaree baa la aaday si loo bedelo mawduucii ama culayskii hadalhaynta ka dhalan lahaa warka ay soo saareen siyaasiyiinta laakiin madaxweynayaashan shirtay ugama aysan harin dhul samaree baa aadi iyo tuutaan gashanaa mar kale iyo dagaalkan dib u abaabulaya waxaas ma qoraan waxaana hadalka ay isku raaceen saddexda madaxweyne waa maxamed cabdullaahi farmaajo sheekh shariif sheekh axmed iyo cabdiqaasim salaad xasan uu farta ku godaa in haddii weliba laba madaxweyne ilaa cabdiqaasim uma muuqda nin raba arrimahaane labada madaxweyne midkood hadduu soo laabto in wixii dhul ahaa ee master birmada uu jajabsaday in la soo celin doono ayaa hadalkan uu ku caddeynaa macnaheed qoraalka ay soo saareen markhaati cad oo ka yahay tuugii shalay dhacay hantida dadweynaha ee dhistay inuusan ku sii nagaanaynin ayay madaxdan qoraal ku caddeeyeen manaxow hantidaada ha iska gelinin haddii isbeddel dhaco dhulkaas waa ku daay adigaana khasaare jooga madaxweyne isii hebelo isii inay soconin qoraalku ku caddiya maxamed cabdullaahi farmaajo iyo sidoo kale mas-uuliyiinta kale ee sida wadajirka u hadlay ayaa sidatan qoraalkooda ku yiri weliba waxay dul istaageen dhowr qodob oo muhiim ah waxaa ugu horeeya madaxweynaha oo la faray war inuu ka waantoobo ku tagrifalka hantida danta guud iyo u awood sheegashada dadka danta yar ee uu dhaartay inuu adeego qodob muhiim ah ummadan biseel madax bisil ay u baahantay shacabka ka daayal barakicinta inta looguma ekeenina waxa hadana loogu baaqay in uu dib u dejin u sameeyo dadka la barakiciyo xaq dastuur ahna u leeyahay inay helaan deegaan war dadka hadaaba kicisay meel geey qodob kale muhiim ah inta looguma harinay duqa waxa la yiri in dhulka lagu soo celiyo gacanta dawladda kii laga maarmi waayena la mariyo hanaanka sharciga tilmaamay waxay cadeynayaan dhul badan oo la yiri sargaal hebelow adiga qaado xildhibaan hebelow adiga qaado wasiirad heblaayo kan ku yaac in filinkaas uusan soconayn waxaan sugnaa doorashada dhici doonta iyo birmada oo daadka qaaday iyo nimankan imaan doona iyo inuu ilaahay istuso raggii burcada ahaa ee dhulka dadka dhacay maalintaas war jira marka aragno sargaal guri dabaq ka dhistay oo laga kicinayo dhulkii ama mas'uul maxkamad loo soo taagay inuu dadka barakicinayo maalintaas salaan la saara ummadda maanta halaga awood badnaado sidii la raba ha loo galo tomorrow laakiin isbedelka markuu dhaco xaqooda inay helaan ayaa meeshan ka dhacay qoraalka saddexda madaxweyne ay soo saareen hase yeeshee uma muuqata hadda xasan sheekh maxamuud inuu kala jecleysanayo madaxdan warkooda waaba iska baxayay wuxuu fahansan yahay shaxda marka culays siyaasi imaan rababa wuxuu leeyahay kaarkii shabaabkan xoqanaa tuutiisu dalaq waxa leeyahay duqa laba maalmo meelaha marmara shabta ka degayso xaaladda markuu jawiga fiiriyay inuu okay yahay oo soo laabana meeshiisa howshiisa wadana ilaa waxaan mugtahay siyaasadda ayaa u baahan baxeeladaysi taas madaxweyne u noqday siyaasi u yahay howshiisa ha wato laakiin raggan kale taagana oo ku dhigin leeyahay maxamedow hatta shalay igu heesu leeyahay farmaajo maxamedow soo bax ka yeeli maayo maanta markii xasan uu soo baxlan kugu hayna ilaa ay ka baxay sheekh shariif oo muddo asagana kursiga la dhinaciisa aad u xarbina waa nin laakiin madaxweyne ah oo ku suntan ninkaas sheekh shariif wanaag ilaa hadda nin madaxweyne sheekh shariif sheekh axmed waxyaabo badan ka sheeganaya arkimays xilligaas asagoo waliba muddo kordhin ma ahayd dabal muddo kordhin samaysan kara awood ahaan isku aadistay ayuu kursiga ka tagay Soomaaliya wuxuu ka soo saaray waxa la yiraahdo kumeel gaarnimada wuxuu adduunka tusay in doorasho hadii loogu guuleysto ka tagi karo madaxweyne dadaalu ahaa